waxaa la yidhi Carweela nin ay markaas gabar u lahayd bay amartay in la dilo iyadoo ka baqaysa inuu afgambiyo. gabadhii markay kortay waxay ka carruurtay siyaalihii hooyadeed ula dhaqanto ragga. maalin maalmaha ka mid ah bay gabadhii si qarsoodi ah ula kulantay odo biiqe oo markaas ahaa duq qaboobay iyo labka keliya ee aan dhufanayn. wuuna uureeyey oo wiil bay dhashay. gabadhii oo ka baqday in hooyadeed wiilkeedii disho baa tiri, hooyo intuu yar yahay iska daa, ariga haynu raacee. wayna yeeshay hooyadii. markuu soo xoogsaday bay tiri, hooyo noo daa, geelka haynu raacee. markuu wiilkii noqday nin xoog leh bay gabadhii tiri, hooyo noo daa inta uu naga difaacayo cadowgeena. wiilkii wuxuu noqday nin dagaalyahan ah, mar walbana wuxuu wadan jiray 2 waran iyo gaashaan dheg wiileed ka samaysneed. markuu ogaaday in ayeeyadiis khatar ku tahay buu baxsaday oo kaymaha hoy ka dhigtay. markii Carweela ogaatay siduu yeelay inankii ayeeyada u ahayd, waxay ku calaacashay bal doqonnimadeedii maandilo intuu i ag joogay. waxayna ku amartay in la soo qabto oo la dilo. wiilkii hooyadiis baa u digtay, waxayna u sheegtay in uu aabihiis yahay oday biiqe. waxayna ku tiri, kaymaha ka raadi oo isku sheeg, talana weydii, waa nin waxgarad ahay. sidii buu yeelay. aabihiis wuxuu u sheegay in ayeeyadiis tahay boqorad xun oo raggii wada dhufantay, isagana rabto inay disho. wuxuuna ku yidhi, ceelka xooluhu ka cabaan ardaa ka ag samee. markaas kadib ayeeyada ku martiqaad adigoo u sheegaya inaad la heshiinayso, waxay doontana u yeelayso. markay ku timaado isku dibci iyaysan kaa shakinin. markay fariisato labadaadii waran midkood ku tumaadi. haddii ay markaas tiraahdo, hooy ba'ayey, waa naag aan awood lahayn ogow. haddiise ay tiraahdo way oo way, waxay maagan tahay dagaal kale, waranka kale ku tumaadi. Carweela way ogolaatay martiqaadkii inankii ay ayeeyada u ahayd, waxayse damacsaneed inay disho. si ay sidaas u samayso, waxay ciidankeedii gelisay meel geedo leh oo u dhoweyd meeshii ardaaga loogu dhisay. waxayna ku tiri, ku soo booda markaan idin baaqo. wiilkii wuxuu ogaaday in ayeeyadii ciidan u diyaarisay, agagaarkana ku gabanayaan. sidaas darteed isla markiiba Carweela u timaaday warankii buu ku dooxay. waxayna tiri, hooyey ba'ayey, waran dambena uma uusan celin. markaas kadibna wuxuu u tagay ciidankii oo weli gambashada ku jira, wuxuuna u sheegay inuu dilo haweenaydii halista ahayd. markii dambe waxaa Carweela aasay dumarkii, waxayna ka dul dhiseen taalo.